iyadoo marka ka sii dambaysa ay ka sii darayaan abaaraha baahsan ee ka jira bariga Somaliland ayaa waxa lagu soo waramayaa in deegaano ka tirsan bariga Somaliland ay waqtigani ka jiraan xaalad aad u daran waxaana la sheegayaa in xoolihii markii ay waayeen calafkii ay cuni lahaayeen ay xoolaha qudhoodii iscunayaan faafahinta warkani waxa inoo soo diray wariyahayaga Yaasiin Baaldahab gobolada bariga Somaliland ayaa waxa ku dhuftay abaar daran oo baahsan taas oo saameysay nolosha dad iyo duunyaba kuwaas oo halis ay ku nool yihiin dadkii abaarahaas ay taabteen abaarta ka jirta deegaanka madax lagu xor oo ka tirsan gobolka Sool ayaa maraysa meeshii ugu sareysay sida ay dadka deegaanku noo xaqiijiyeen xoolaha oo bilaabay inay cunaan dadkii xoolo dhaqatada ah kadib markii ay waayeen biyo iyo baadba dadka reer guraaga ah oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Universal TV waxa hadalada doodi kamid aha sidan hooyadan aad arkayso hooyo magaca Maryam Warsame farta maxaa ka helay farta waxa iga helay waarigaas ay aribay cunay hayeesha waan gartay arigaas wuxuu cunaaba waay waan gartay markaan korsanayno waxa loo diraad ku dhowr qof waan gartay waarigaas waa nagu soo qamaamaya wixii uu dhulka ka cuni jiru waay waa nagu soo qamaamaya aniga inaan baa meesha joogno labadiyadiba waana diirta faru waa kuwaas waa heeli waana teetanobena waa u liidana arigaas waxa laala wuxuu cunaaba waay baahi wuxuu dhulka ka gooyaba waa ka dabeed anageena diirtay oo dadkii coodan loo hayaamaanu nahay dadkii xadhaanka tagaanu nahay diiq wax yar oo digaanu hayna wixii yarana waneel ku kiciye isagiina waa iscuna ka codsanayna xukuumadda inay naga soo gaadha waxa nool wax ka carari kari weynay ka tagi kari weynay waxaagiyo inda garanayso oo waxay cunaan waayo kugu soo qamaamaya ka dhaqaaqi kari weynay waa inda garanayna waana nagu farxun yahay wax baahi nooga dhimani ma jiro wax baayaal nooga dhimani ma jiro wax biyalaan nooga dhimani ma jiro waxaan xukuumadda ka codsanayna waxaan isaga iskaga jeedinay waxaan anagu cunaba saddex qof buu ku cunay madax lagu xoor waan gartay waa laba inaan iyo aniga Maryam Warsame Muuse abaareed baana arag hay'adaana arag mucaarad baana arag muxaafid baana arag ciidanka wax loo keentay ma jirto waxaanu maqalnaa waxa jirta guddi abaareed oo madaxweynuhu magacaabay oo loo magacaabay dadka xaaladiisa iyo xoolaha inay la socdaan biyo iyo baadba anagu meel wax geeyaan war uma hayno ma iyaga dhexda ka duway ma waxbaan loo dhiibin ma anagaan ahayn dad muwaadin oo reer Somaliland marxada wax sabay war uma hayno waxaan ku dhaliilaynaa arinta xukuumadda inay wixii inaanay hawsheedii ka seexatay iyo wixii ay dhiibtay inaanay ka warhayn meesha ay mareen goobtan aanu joognaa waa takliya ay ka dhacday in xooluhu ay cunaan dadka waxaanu baaqu diraynaa xukuumadda mucaaradka shacabka hay'adaha muwaadiniinta iyo wixii muslimiin cid kastoo ay qusayso dadka halkaas jooga dadkayaga 24 saac gudahood waxa looga aasaa wax waa biyo la'aan iyo baahi kale lixda gobol ee Somaliland meesha qura ee ay xoolaha nool dadka nool cuneen oo aan mid ahayn laba iyo saddex ahayn waa madax lagu xoor waxa nasiib daraa gobolka Sool iyo gobolka Saraar in dad baqteeya isku turturaan waa nasiib daro waxa la dhicisku inta midelo isku baqtiya qof baqteeya oo gaajo iyo haraad u dhimanaya hadii waxa weeye la yaho meelba ka tirsan tahay waa nasiib daro Yaasiin Baaldahab telefishinka caalamiga Universal TV magaalada